السلام عليكم dhamaantiin saaxiibada sharafta badan sheekada muuqaalku waxay ka bilaamaysaa bartamaha badweynta waa sanadkii 1846 waana xilli ay sii dhamaanayso waayihii burcadbadeed ee badda Kariibiyaanka waxaa haray oo kaliya burcadbadeedii ugu naxariista darnayd kuwaas oo si qoys ah u raadinaya wado ay kaga baxaan xaaladooda xun koox ka mid ah burcadbadeeda ayaa weeraraysa markab kale kabtankii markabka la weeraray oo ah nin lagu magacaabo Borden ayaa wuxuu isku dayayaa inuu iska difaaco burcadbadeeda balse waa laga tiro badanaya kabtanka burcadbadeeda Connor ayaa weydiinaya Borden sida gabal dahab ah oo sanado ka hor laga xaday uu ugu dambeyntii ugu soo galay gacanta kabtan markab ganacsi oo aan qiimo lahayn Borden wuxuu ugu jawaabayaa in dahabka uu siiyay nin kale markabku wuxuu ka yimid jasiiradda Cayman Brac Connorna wuxuu u sheegayaa inuu halkaas ku wajahan yahay muuqaalku wuxuu markaa u wareegayaa 6 maalmood kadib jasiiradda Cayman Brac wadaad ayaa ale ka baryaya inuu nabad ku soo celiyo kabtan Borden iyo raggiisa xaaska Borden Ursel ayaa weli sugaysa soo laabashadiisa gurigooda Borden walaashii oo lagu magacaabo Elizabeth ayaa waxaa soo booqanaya gacaliyaheeda Weston markabka Weston wuxuu bixi doonaa beri wuxuuna Elizabeth weydiinayaa inay go'aankeedii gaartay iyo in kale isla markaas Ursel ayaa albaabka soo galaysa codka albaabkana wuxuu toosinayaa wiilkeeda Isaac Ursel waxay arkaysaa in Elizabeth ay gubtay nacnici qumbaha maadaama aysan fiiro gaar ah u yeelan Isaac wuxuu hooyadii weydiinayaa aabihii waxaa laga joogaa 59 maalmood Ursel waxay ku qancinaysaa inuu soo laaban doono maadaama uu mar walba soo laaban jiray Ursel waxay la hadlaysaa Elizabeth nolosheeda oo dhan waxay ku qaadatay jasiiradan yar waxay ku hamidaa inay mar uun qorax soo baxa ka daawato xeeb kale laakiin Ursel waxay kula talinaysaa inay joojiso riyo maalmeedka Ursel waxay wiilkeeda u diyaarinaysaa nacnac cusub oo qumbaha ah maadaama maanta ay tahay dhalashadiisa hase yeeshee meel fog waxaa xeebta ku soo wajahan koox burcadbadeed ah Isaac wuxuu dareemayaa inay wax khaldan yihiin aabihii wuxuu u ballan qaaday inuu iman doono ka hor dhalashadiisa sidaas darteed Ursel waxay u sheegaysaa in aabihii uu hadiyad uga tegay haddii uu dib u dhaco waxay Isaac siisay midi laakiin dhab ahaantii mididaasi ma ahayn tii Borden ee waxay ahayd tii Ursel xeebta jasiiradda burcadbadeedu waxay dilaysaa dhibanahoodii ugu horeeyay kaas oo ah Weston gacaliyihii Elizabeth subaxdii xigtay Elizabeth ayaa si qarsoodi ah uga baxaysa guriga Ursel waxay maqlaysaa shanqarta bixitaankeeda markay gasho qolka Elizabeth ma arkayso balse daaqada ayay ka arkaysaa burcadbadeeda Ursel si degdeg ah ayay Isaac u toosinaysaa waxayna ku qarinaysaa meel sir ah oo sagxada hoosteeda ah waxay qaadanaysaa qori waxayna burcadbadeeda u sheegaysaa inaysan doonayn wax dhibaato ah laakiin burcadbadeedu waxay ka soo weerarayaan dhinac kasta wayna ka adkaanayaan waxay ku hadlayaan luuqad qalaad waxay yaqaanaan magaca Ursel waxayna dalbanayaan inay sheegto meesha ay lacagta ku qariso lacag ayaa ku qarsoon sawirka gadaashiisa laakiin taas ma raadinayaan waxay tusayaan gabal dahab ah waxayna dalbanayaan inay sheegto meesha uu yaalo dahabka intiisa kale Ursel waxay weydiinaysaa cidda ay yihiin mid ka mid ah hogaamiyayaasha burcadu Scott ayaa wuxuu amrayaa raggiisa inay lafaha ka jijabiyaan laakiin wejigeeda aysan dhaawicin markuu waagu baryo Connor isaguna wuxuu soo gaarayaa jasiiradda sarkaalka ilaalinta jasiiradda ayaa arkaya wuuna u tagayaa wuxuu Connor u sheegayaa in tani tahay maxmiyad Ingiriis oo xor ah wuxuuna ka dalbanayaa inuu sheego magaciisa darajadiisa iyo cidda uu daacadda u yahay Connor wuxuu ugu jawaabayaa waxaan ahay kabtan Francisco Connor walaal is-hoosaysiiya oo ka tirsan ragga badda dhanka kale Elizabeth waxay xeebta ka raadinaysaa Weston balse waxay helaysaa meydkiisa oo kaliya wadaadkii jasiiradda ayaa arkaya Connor iyo sarkaalka oo wada hadlaya maamulaha dekedda ayaa telescope ku eegaya badda wuxuuna arkayaa markabka burcadbadeeda ee Connor oo meel fog ku xiran wadaadku wuxuu amrayaa dadka oo dhan inay galaan kaniisadda sarkaalka ilaalinta markiiba wuxuu garanayaa magaca Connor waa burcadbadeed la doondoonayay oo cadow ku ah boqortooyada Ingiriiska inta kale ee kooxda Connor waxay doomo yaryar ku soo wadayaan xeebta Connor wuxuu sarkaalka weydiinayaa halka ay joogto xaaska Borden sarkaalkii wuxuu ku qaylinayaa diyaariya madfaca dadka jasiiradda waxay diyaarinayaan madfaca waxayna ku jeedinayaan kooxdii Connor ee soo socota hase yeeshee shiishyahan ka tirsan raggii Connor ayaa tooganaya ninkii madfaca waday ka hor intuusan ridinba muuqaalku wuxuu dib ugu noqonayaa Ursel gudaha guriga laba burcadbadeed ayaa xarig qoorta uga xiraya oo daldalaya waxay maqlayaan codka Isaac oo ka imanaya sagxada hoosteeda markaas Ursel waxay kula hadlaysaa afkooda iyadoo ku leh ka jooga mid ka mid ah burcadbadeeda wuu la yaabayaa wuxuuna weydiinayaa yaa ku baray luuqadan Ursel waxay ugu jawaabaysaa qofkii i baray sida loo dagaalamo waxay iska furaysaa xarigii waxayna bilaabaysaa inay ula dagaalanto burcadbadeeda sidii dagaalyahan si fiican u tababaran dhanka kale Connor wuxuu bilaabayaa inuu dilo dadka jasiiradda uma ogola qofna inuu u dhawaado madfaca inkastoo laga tiro badan yahay haddana cidina ma joojin karto guriga dhexdiisa Ursel waxay midi ku dilaysaa mid ka mid ah burcadbadeeda midka kalena wuxuu ka tuurayaa daaqada Ursel iyadoo dhulka ku gurguuranaysa ayay gacanta gashanaysaa qolofbadeed waxayna ku dilaysaa burcadbadeedkii laakiin waqtigaas inta kale ee burcadbadeedu waxay hore u gaarayaan xeebta Elizabeth way dhuumanaysaa markay aragto Connor wuxuu ku dhahayaa ku-xigeenkiisa Lee qofna kama bixi karo jasiiradan ilaa aan dib u helo hantidayda ninkii sarkaalka ahaa ayaa uga digay Connor isagoo leh ciidanka badda boqortooyada ayaa biyahan gaaf wareega wayna yaqaanaan sida loola dhaqmo dadka noocaaga ah Connor ayaa weydiinaya ninkii sarkaalka ahaa meesha uu ku yaalo calaamada gurmadka ee jasiiradda ninka ayaa qoslaya
Connor wuxuu farta ku fiiqayaa kaniisadda. Ku-xigeenkiisa ayaa madfaca u jeedinaya dhanka kaniisadda, halkaasoo ay dadka jasiiradu ku dhuumanayaan. Markaas ayuu sarkaalkii u sheegayaa meesha uu ku yaalo calaamada gurmadka. Connor wuxuu ku dhahayaa dhiigga maanta halkan ku daatay adiga ayaa mas'uulka ah. Dabadeedna wuxuu ku qarxinayaa madfaca isagoo isla goobta ku dilay. Isla markaas Scott ayaa imanaya wuxuuna sheegayaa inay weli raadinayaan dahabkii balse ay gacanta ku dhigeen haweenaydii. Laakiin xaqiiqadu sidaas ma ahayn. Ursel waxay meydkii burcadbadeedka dhintay ku dabooshay maro. Waxay wiilkeedii ka soo saaraysaa halkii uu ku dhuumanayay waxayna u sheegaysaa inuusan cabsan. Waxay u sheegaysaa inay wax kasta samayn doonto si ay isaga u difaacdo. Waxay ku amraysaa inuu diyaarsado waxyaabaha uu u baahan yahay iyo cunto 3 maalmood ku filan. Laakiin markaas ayay maqlaysaa qof banaanka jooga. Waxay qabsanaysaa qorigeedii oo isu diyaarinaysaa dagaal, balse wuxuu ahaa wadaadkii kaniisadda. Wadaadku wuxuu u sheegayaa inay jasiirada joogaan koox burcadbadeed ah oo uu hogaaminayo nin aad u arxan daran, isla markaana wata hub uusan weligii hore u arag. Wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inuu isagii yahay. Ursel ayaa tiri taasi suurtagal ma aha. Wadaadku wuxuu ugu jawaabayaa adiga kaliya ayaa laga yaabaa inaad awooddo inaad joojiso. Markaas Ursel ayaa si caro leh ugu jawaabaysa mar dambe ha iigu yeerin kabtan. Isla waqtigaas Isaaq ayaa tusaya warqad ay Elizabeth uga tagtay. Ursel waxay Isaaq ku fadhiisanaysaa kursigii curyaamiinta waxayna ku amraysaa inuu wadaadku u raaco meel cayiman. Iyaduna waxay sheegaysaa inay soo raadinayso Elizabeth kadibna ay halkaas kula kulmi doonto. Dhanka kale Elizabeth waxay si argagax leh ugu dhex ordaysaa beer bannaan. Ursel si taxaddar leh ayay ugu dhex soconaysaa jasiiradda iyadoo ka dhuumanaysa burcadbadeedda baadi goobaysana Elizabeth. Ugu dambeyn way helaysaa Elizabeth waxayna u sheegaysaa inay aamusto. Elizabeth ayaa tiri Winston waa dhintay. Ursel waxay ugu jawaabtay waa inaan hadda dhaqaaqnaa ka hor intaysan nimankaasina helin. Mar kale iyo guriga burcadbadeedu way imaanayaan iyagoo filaya inay Ursel weli guriga joogto. Halkii waxay ka helayaan meydadka raggii iyaga ka tirsanaa ee la dilay. Scott ayaa ka warbixinaya wixii dhacay. Lee wuxuu raggiisa u kala dirayaa inay Ursel soo ugaarsadaan. Connor ayaa arkaya raadadka kursiga curyaaminta ee dhulka ku yaala wuxuuna dhahayaa waxay haysataa wiil curyaan ah. Dhanka kale kursigii Isaaq ayaa ciidda ku dhegaya. Halkaas ayuu ku arkayaa geedkii calaamadda lahaa. Ursel iyo Elizabeth ayaa soo gaaraya iyaga. Gadaashooda waxaa soo socda burcadbadeedii oo heshay kursigii Isaaq oo laga tegay. Ursel waxay gaaraysaa durdurbiyood ciriiri ah. Waxay ka talaabi doonaan iyagoo adeegsanaya doon yar oo dambiil u eg. Elizabeth iyo Isaaq ayaa marka hore ka gudbaya. Durdurka waxaa ka buuxay xaasyo. Markay Ursel gudubtay burcadbadeedii ayaa soo gaaraya. Wadaadkii ayaa diidaya inuu ka gudbo durdurka. Connor ayaa ugu yeeraya Black Hat Bradley. Ma adiga wadaadku weli wuxuu laabta ku lahaa taatuugii hore. Ursel waxay Elizabeth iyo Isaaq ku dhahaysaa inay sii socdaan iyada la'aanteed. Iyadoo adeegsanaysa telescope ayay ka daawanaysaa wadaadka oo wajahaya Connor. Isla markay Connor aragtay aad bay ula yaabtay. Burcadbadeedu waxay rasaas ku furayaan dhankeeda. Markaasay orod ku baxsanaysaa. Connor ayaa raggiisii ku dhahaya hadilina mudanayaal waxaan u baahanahay iyada oo nool. Qaar ka mid ah burcadbadeeda ayaa dhex gelaya durdurka balse waxay si fudud ugaar ugu noqonayaan yaxaasyada. Dhanka kale Elizabeth iyo Isaaq waxay ku dhuumanayaan gudaha geed weyn oo maran. Burcadbadeedu way ku soo dhawaanayaan laakiin Ursel ayaa dareenkoodii isu jeedinaysa. Waxay weeraraysaa mid ka mid ah burcadbadeeda kana dhacaysaa qorigiisii. Mid ka mid ah burcadbadeedii oo dhaawacmay ayaa gaaraya Elizabeth. Isaaq ayaa hore u soo dhaqaaqaya isagoo mididiisii la soo baxay laakiin Ursel ayaa gadaashiisa ka soo muuqatay oo iyadii dishay. Dhanka kale ee durdurka Connor ayaa ku qayliyay Bloody Mary. Ursel waxay si cad u maqashay codkiisa. Connor ayaa yiri waxaan isweydiinayaa inuu qoyskaagu dhab ahaantii garanayo qofka aad tahay. Wuxuu ku dhahayaa hubka dhig ogolow inaan ka aargudano dembiyadii aad gashay. Jawaabta Ursel waxay ahayd inay madaxa go'an ee mid ka mid ah badeediisa ku hortuurto isaga. Connor ayaa markaas soo bandhigay heshiis. Wuxuu ku yiri bal ka waran haddaan ku bedelano nolosha kabtan Bowden. Wuxuu hadda saaran yahay markabkayga. Connor wuxuu dalbaday in dahabkiisa loo soo celiyo ka hor waa beriga, bedelkeedana uu sii dayn doono Bowden isagoo nool. Ursel waxay Elizabeth iyo Isaaq geynaysaa god qarsoon. Isla markii ay kabriid shiday, godkii oo dhan ayaa iftiimay. Gudaha godka waxaa loo dhisay sida markab oo kale, waxaana ka buuxay dabino. Ursel waxay u sii kaxaynaysaa gudaha fog. Elizabeth ayaa weydiisay ninkaas muxuu ahaa, sideese ugu fiicnaatay dilka dadka. Ursel waxay u sheegaysaa in Connor uu hore gumaystay uga ahaa shirkadii ganacsiga ee bariga Hindiya, isla markaana uu ahaa burcadbadeed caan ku ahaa badaha. Dhanka kale Lee ayaa raggiisii ku dhahaya markaan carruurta ahayn haweenaydaasi waxay ahayd cabsi dhab ah. Waxay lahayd markab u gaar ah oo garab shiraacda markabka Connor. Elizabeth ayaa weydiisay Ursel sida ay Connor ku aqoonsatay. Ursel waxay u sheegtay in iyada iyo waalidkeed ay ahaayeen shaqaale qandaraas ku xiran markaas oo Connor uu soo weeraray markabkoodii. Wuxuu gowracay waalidkeed iyaduna wuu afduubtay. Xilligaas waxay jirtay 12 sano oo kaliya. Waxay ku kortay markab burcadbadeed halkaasoo loogu bixiyay naanaysta ah Bloody Mary. Waxay sheegtay in Bowden uu og yahay wax kasta oo ku saabsan nolosheedii hore. Dhanka xeebta Bowden ayaa la keenay jasiiradda. Gudaha godka Ursel waxay Elizabeth iyo Isaaq tusaysaa dahabkii ay Connor ka xaday. Dahabku wuxuu lahaa calaamado gaar ah. Waxay ahayd inuu dhulka ku aasnaado ilaa Ursel ay ka dhimanayso. Ursel waxay tiri kalbar noloshayda waxaan ku qaatay walaalaha burcadbadeeda. Isla markaana ay jirto hal dariiqo oo kaliya oo Connor lagula tacaali karo. Gudaha godka Ursel waxay furaysaa sanduuq weyn kana soo saaraysaa gaashaankeedii iyo hubkeedii. Waxay haysatay bambooyin badan iyo qoryo kala duwan.
waxay isaaq u sheegaysaa inuu diyaariyo shiraacyada markabka. Ursel waxay qaadanaysaa dahabkii una dhaqaaqaysaa sidii ay Borden dib ugu soo badbaadin lahayd. Borden ayaa Connor weydiinaya inta nin ee ay Ursel dishay. Connor wuxuu ku jawaabayaa rabshadu waa luuqadeeda hooyo. Wuxuu xusuustay habeen ay 3 badmaax galeen qolkeeda. Subaxdii dambe waxaa la helay qaybihii ugu fiicnaa ee meydadkooda oo ka laalaada afaafka hore ee markabka. Connor wuxuu Borden u sheegayaa in ay muddo isaga iyo Ursel ahaayeen lamaane dhab ah dhinac kasta. Miyay kuu sheegi weyday ayuu ku daray. Gudaha godka, Elizabeth waxay helaysaa buuggii xusuus qorka ee Ursel, kaasoo ay ka buuxeen faahfaahin ku saabsan nolosheedii hore. Ursel waxay ka soo baxaysaa ceel ku dhow gurigeeda. Waxay si aamusan u bilowday inay mid u disho burcadbadeeda. Burcadbadeedu waxay ku wada xiriirayeen fooriyo. Ursel waxay guriga ka buuxinaysaa qiiq, waxayna ku dilaysaa mid ka mid ah burcadbadeeda iyadoo qiiqa ku gambanaysa. Waxay ugu dambayn gaaraysaa Borden. Borden ayaa raaligelin bixinaya isagoo leh, waan ka xumahay inaan dahabkiina xaday. Waxaa jiray dhakhtar daaweyn karay dadka la midka ah isaaq. Burcadbadeedu waxay ogaadeen in fooriyihii ay ka maqli jireen raggii la dilay ay aamuseen. Markaas ayay feejignaan galayaan. Furaha silsilada Borden waxaa gacanta ku haya Connor. Borden wuxuu Ursel weydiinayaa waxa ka dhaxeeya iyada iyo Connor. Ursel waxay ugu jawaabtay, wax kasta oo aan sameeyey waxaan u sameeyey inaan noolaado. Waxay sheegtay inay khasab tahay in la sameeyo kala bedelashada. Waxay Borden siinaysaa toorey. Labadooduba waxay isku dhahayaan erayo kalgacal ku dheehan yahay. Dibadda, Ursel waxay qabsanaysaa xarigii ku xirnaa bambooyinkeeda. Waxay leedahay haddii uu qof ii soo dhawaado, dhammaantood waan qarxin doonaa. Connor ayaa horteeda ka soo baxaya isagoo dhahaya ma ii xiistay gacalsadeydii. Ursel waxay dahabkii ka soo saaraysaa ceelka. Borden ayaa silsiladii laga furay waxaana loo dirayaa dhankeeda, laakiin Connor ayaa gadaashiisa ka qaylinaya isagoo leh, ka waran khiyaanadeeda, sidee bay u miisaami doonaan? Wuxuu yidhi markii aan helayay waxay ahayd gabar yar oo tabar daran. Aniga ayaa badbaadiyey, awood iyo xoogna siiyey, laakiin beddelkeeda waxay igu muday midi, waxayna iga xaday dahabkaygii. Wuxuu sheegayaa inuu khaladkaas ku sixi doono isagoo ka argudan doona wiilkeeda curyaanka ah. Borden markuu intaas maqlay wuxuu si toos ah u weerarayaa Connor. Ursel waxay jiidaysaa xargihii bambooyinka waxaana bilaamaya qaraxyo waaweyn oo burcadbadeeda dhexdeeda ka dhacay, laakiin jahawareerka dhexdiisa Connor wuxuu ka adkaanayaa Borden. Markay Ursel intaas aragtay waxay ku qaylinaysaa waan isdhiibay, wax kasta oo aad rabto waan kuu samaynayaa, laakiin Connor ma dhagaysan, wuxuuna dilayaa Borden. Kadibna Connor wuxuu sidoo kale qabanayaa Ursel. Wuxuu ku dhahayaa dahabka waxaa awalba lahaa shaqaalahayga. Isagu wuxuu u yimid abaalmarinta la duldhigay madaxa Bloody Mary. Ursel waxay dab qabadsiinaysaa xarigii ku xirnaa bambooyin lagu qariyay sanduuqa dahabka, kadibna waxay isku tuuraysaa ceelkii. Gudaha godka, Elizabeth waxay sii akhrinaysaa buuggii xusuus qorka. Waxay ogaatay in Borden uu ahaa shaqaale deged ka shaqayn jiray. Waxay ku kulmayaan jasiiradda Cayman Brac. Ursel waxay halkaas ugu dhuumanaysay kadib markii ay dahabkii xaday oo ay si dagaal leh uga soo baxsatay ciidamadii Connor. Magaca dhabta ah ee Ursel wuxuu ku qornaa luuqad aanu Elizabeth aqoon u lahayn. Isla markaas Ursel ayaa godka soo gelaysa iyadoo dhaawac culus qabta, kadibna miyir beelaysa. Dhanka kale, qaraxyadii waxay dilayaan tiro badan oo burcadbadeed ah. Lee aad buu u caroonayaa wuxuuna ku qaylinayaa waxaasoo dhan maxaa loo sameeyey. Ujeedadeenu waxay ahayd dahabka, haddase wuxuu isu bedelay boor. Wiilkayga wax aan faa'iido lahayn ayuu ku dhintay. Mar dambe shaqaalahayga ma gelin doono geeri afkeeda. Wuxuuna amrayaa dhammaan ciidanka inay dib ugu laabtaan markabka. Wuxuu sheegay inuu soo ururin doono inta ka hartay shaqaalaha markabka si loogu codeeyo waxa xiga ee la samayn lahaa. Connor wuxuu arrintaas ku tilmaamayaa kacdoon, wuxuuna ku dhahayaa ciqaabta kacdoonku waa dil. Isla markiiba Connor wuxuu tooganayaa Lee wuuna dilayaa. Kadib wuxuu la hadlayaa raggiisa isagoo leh, anaga oo badaha ugu shiraacan jirnay boqor iyo dalba, maanta waxaana loo aqoonsaday dembiilayaal. Dunida cusub ma aqbalayso hababkeenii hore, laakiin waxaan hayaa amar ay soo saareen 3 boqortooyo oo ballan qaaday in qof kastoo soo qabta Bloody Mary loo fidin doono cafis nololeed. Dhammaan dembiyadiina sharcigu wuu idinka tirtiri doonaa. Waxaad mar kale xor u noqon doontaan inaad badaha ku dhex socdaashaan sida guulaystayaashii hore. Haddaba yaa ila jira, wuxuu ku daray hal maskax, hal gacan iyo hal kabtan oo seef af badan sita. Dhammaan burcadbadeedii ayaa ku qayliyey iyagoo ogolaanaya heshiiska. Waxay bilaabeen inay ku dhawaaqaan magaca kooxdooda, Libertas, Libertas. Gudaha godka, Elizabeth waxay daaweynaysaa dhaawacyada Ursel. Ursel waxay si murugo leh ku tiri, waan idin fashiliyey, Borden waan badbaadin kari waayey. Dhanka kale, Scott ayaa helaya marinkii qarsoonaa ee ku hoos yaalay ceelka. Taasi waxay ka dhigan tahay inay khasab ku noqon doonto inay halkaasna ka cararaan. Waxay u baahan yihiin inay noolaadaan ilaa waaberiga. Marka qoraxda soo baxdana waa inay shidaan calaamada gurmadka. Taasi waa rajadooda ugu wanaagsan ee ciidanka badda Ingiriiska ay ku arki karaan qiiqa. Isaaq ayaa soo jeedinaya inay dhammaantood ku baxsadaan doonta yar ee catboatka, laakiin Ursel ayaa dhahaysa, anigu ma carari karo. Connor mar kale ayuu iga daba iman doonaa, waa inaan dilo. Elizabeth ayaa ku dhahaysa keligaa ma aha inaad wax kasta samayso. Ursel waxay sheegtay in goobtani loo dhisay sidii qalcad adag oo loogu talagalay inay qoyska ilaaliso haddii ay waayihii hore mar uun dib u soo noqdaan. Qorshaheedu waa inay burcadbadeeda gudaha u soo jiitaan, kala firdhiyaan, kadibna sugaan fursad ay Connor ku dili karaan. Mashquuliya, difaaca, dabadeedna baabi'iya. Burcadbadeedu waxay bilaabeen inay u soo dhaqaaqaan godka. Ursel waxay Isaaq ku dhahaysaa, hadday wax igu dhacaan, qaado doonta oo u shiraaco jasiiradda weyn. Waxaad taqaanaa khariidadaha iyo mawjadaha biyaha. Waxaad dabaalan jirtay ka hor intaadan baran istaaga. waxaad tahay badmaax dabiici ah.
burcadbadeedu waxay gelayaan godka. ninkii ugu horeeyey wuxuu rogayaa qalab bir ah, isla markiibana falaar ayaa ku dhacaysa, wuuna dhimanayaa. waxay arkayaan Ursel oo dhuumanaysa, rasaas culus ayaa labada dhinacba ka dhex qarxaysa. Elizabeth waxay dab qabadsiinaysaa xarig, taasoo sababtay qarxyo ka dhacay meel u dhow burcadbadeeda, kana xiray jidkii ay ka baxsan lahaayeen. Connor wuxuu u dhaqaaqayaa dhinacii Ursel keligeed iyadoo wajahaysa dhammaan burcadbadeeda. Ursel waxay si xirfad leh uga leexleexanaysaa weeraradooda iyadoo mid u dilaysa. Elizabeth waxay u dhaqaaqday albaabka si ay u eegto xaaladda Ursel, laakiin Scott ayaa qabanaya. Isaaq ayaa midi ku dhufanaya Scott, dabadeedna labadoodiiba way ordayaan. Elizabeth waxay Isaaq ku dhahaysaa degdeg doonta ugu diyaari biyaha. Isla markuu Isaaq baxo, Scott ayaa mar kale qabanaya Elizabeth, iyadoo la halgamaysa say uga baxsato ayay Elizabeth waxay jiidaysaa xarig ku xirnaa qaanso falaarida. Falaartii ayaa si toos ah ugu dhacaysa Scott, halkaasna ku dilaysa. Elizabeth waxay qoortiisa ka furanaysaa katiinad Weston, waxayna ku dhahaysaa tani adigu ma lihid. gudaha mugdiga godka, Ursel waxay dilaysaa burcadbadeed kastoo soo haray. hadda waxaa soo haray Connor oo keliya. Connor ayaa qoslaya isagoo dhahaya, hadda anaga oo keliya ayaa haray gacalisadaydii, bal aynu banaanka u baxno oo halkaas ku dhammaysano arrimaheena. Isaaq wuxuu doontii ku dejiyey biyaha, wuxuuna furay shiraacyadii. markuu kor eegay wuxuu arkayaa dab ka holcaya buurta dusheeda, laakiin isaga ma uusan shidin. Connor ayaa shiday. Connor wuxuu dhahayaa ha yimaadaan oo ha helaan jasiirad hoy siisay dembiile la raadinayo. labadooda waxay la baxayaan seefahoodii, dagaalkiina wuu bilaabanayaa. weerar kasta waxaa ka daba imanaya weerar kale, iyagoo si siman isu waafaqaya. Ursel waxay Connor ku muday mididii yareed ee ku xirneed gacanteeda, laakiin Connor wuxuu gacanteeda ka tuurayaa seeftii. wuxuu ku dhahayaa isdhiib. Ursel hadda hub ma haysato. waxay isku dayday inay kula dagaalanto ul dab qabsaday, laakiin waxba uma tarin. Connor mar kale ayuu ku dhahayaa isdhiib. Ursel ayaa ugu jawaabaysa, igaga mud feeraha dhexdooda sidii aad Borden ugu dishay, laakiin isla markaas ayaa rasaas dhacday. Elizabeth ayaa Connor toogatay. Ursel waxay ka faa'iidaysatay fursaddaas, waxay dib u weeraraysaa oo ay seefta si toos ah ugu mudaysaa Connor. intuu Connor dhimanayay ayuu si hoose ugu dhahayaa My Bloody Mary. Elizabeth ayaa soo carartay, waxayna qabanaysaa Ursel si aysan u dhicin. Ursel ayaa u mahad celisay, kadibna waxay ku dhahaysaa magacaygu waa Maryam. dhanka doonta, Isaaq wuxuu ogaanayaa in dahab lagu qariyay sagxadda hoose. meel fog, ciidanka badda Ingiriiska waxay arkayaan calaamadii gurmadka ee ka muuqatay cirifka badda. muuqaalku halkan ayuu ku egyahay. fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena kommentiga hoose noogu reeb. kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.